السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلتي هبونا داوديال meel kasta dogtaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray dalka dibadda oo aad kala socon doontaan TV-ga caalamiga ee Djibouti qodobada ugu door korona waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dalka Urdun gaaray si uga qayb qaato howlaha shir madaxeedka jaamacadda Carabta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa inta uu waan bixin dalkaasi waxa uu shaqo la yeeshay agaasimaha ku xigeenka banka dunida qodobka ugu dambeeya warka caalamkana waxa weeyaan qaramada midoobay ayaa ka soo horjeestay hubka nuclear-ka qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal kula soconaysaan warkayga caawa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa gaaray caasimadda wadanka Urdun ee Amman halkaas uu kaga qayb qaadanayo howlaha shir madaxeedka jaamacadda Carabta shir madaxeedkaasi madaxda dalalka jaamacadda Carabta waxa laga hadlayaa arrinta Falastiin iyo xaaladda amniga wadamada Carabeed ee ay ka mid yihiin Suuriya, Yemen, Liibiya iyo habkii nabadgelyo lagu soo dabaali lahaa colaadaha ka taagan dalalkaasi waxa kale oo madaxda ka qayb qaadanaya ay ka wada hadli doonaan dib u habeyn lagu sameeyo ururka jaamacadda Carabta iyo isdhexgalka dhaqaale ee wadamada xubinta ururka kolkii uu soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi Urdun gaar ahaan caasimadda si dalka Urdun waxa si diran u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dalkaasi iyo sidoo kale wafdiga wasiirka madaxweynaha jamhuuriyadda kuweynay oo kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa halkaasi ka jeedin doona khudbad ballaaran oo kaga hadli doono kor u qaadida baaxadda la istaagarsiga u dhaxeeya wadamada xubinta ka ah ururka iyo isku duubnaantooda ku aadan iskaashiga horumarinta wadajirka iyo adkeynta nabadgelyada iyo ka hortagga argagixisada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waxa uu la kulmi doonaa boqorka Urdun boqor Cabdallah de oo dalkaasi martigeliyay shir madaxeedkan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan halkaasi laga tumay musiga astaanta caalanka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda kadib kulan gaaban uu yeeshay waxa ay ka wada hadleen xiriirka iskaashiga u dhaxeeya labada dhinac shirkii guud ee wasiirada arrimaha dibadda ee lagu gogol xaarayay shir madaxeedka ayaa shalay galinkii dambe laga soo gabagabeeyay dalkaasi Urdun waxaana shirkaasi gudoominayay wasiirka arrimaha dibadda ee Urdun Ayman Asdefo oo uu joogay xogayaha guud ee jaamacadda Carabta shirkani oo ahaa mid iradaha loo xiray ayaa looga hadlay xaaladda amniga ee wadamada sida Suuriya, Liibiya, Yemen iyo wadamo kale waxa sidoo kale ay ka wada arrinsanad xaaladda Falastiiniyiinta iyo xasilinta nabadda wadamada Carabeed sidii loogu soo dabaali lahaa nabad iyo xasilin iyo waliba waxa kale looga hadlay in la diiday musharaxnimada in Israa'iil xubin ka noqoto golaha amaanka ee jaamacadda Carabta sanadada 2019 iyo 2020 dalka Urdun oo marti gashay shirkaasi ayaa sheegay in dalka Suuriya ay ka qayb qaadan doonaan shirkani sabab la xiriira in dalkaasi u diiday dhaqan galinta xabad joojinta in laga hirgasho dalkaasi qodobada kale ee aad u muhiimsan ee caawa waxaad kala socon doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele ayaa saaka qasriga madaxtooyada ku qaabilay gudoomiye ku-xigeenka banka adduunka Hafiz Ganem wada hadalka dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo gudoomiye ku-xigeenka banka adduunka waxa uu ku lug lahaa taageerada bankiga adduunka ee jamhuuriyadda Djibouti ee dhinacyada horumarinta bulshada kulankaasina waxa uu joogay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale gudoomiye ku-xigeenka banka adduunka Hafiz Ganem ayaa booqasho 3 maalmood ah uu ku joogaya dalka waxaana uu horkacaya wafdi aad u ballaaran oo ka tirsan bankiga adduunka
gudoomiye ku-xigeenka bankiga adduunka oo warbaahinta dalka la hadlay ayaa waxa uu sheegay in la kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu kaga faa'iideystay in mar kale uu u cadeynayo in ay diyaar u yihiin in jamhuuriyadda Jabuuti ay ka taageeraan dhinaca horumarinta bulsho dhaqaale waxayna leenahay buu yiri xiriir iskaashi xoog leh oo dhinacyada kaabayaasha dhaqaale iyo la dagaalanka saboolnimada. geestiisa wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale oo wareys la yeelanay kulanka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka banka gudoomida waxa uu ka hadlay ujeedka kulankaasi iyo qodobada lagu soo qaaday waxaana wasiirku sidata madaxweynaha ku-xigeenka banka adduunka bank mondial ka qaraar loo yiraahdo xafiis waxa uu saaka ka yimid Mareykankii زيارو صدح إشاعيو جبوتنا لجوجا سيدات وقتين مدحوني باي مك قابله أنا كيو لس بنك مونديال كنا علاقات أتك أو جيرنا ويان سو جيرنا وح أنا كنوع مقاتل كاسي دنين تاي بنك دونكو دنين جبوتي سيري فقرقة ولذا كلام كيس وواحد بدنا نقرأ له إيو شغلة أنت ما أنت بس بريزيدنت بنك مونديال كا مدحوينها اسماعيل عمر جيلو waxay ka wada hadleen sidii loo gargaari lahaa Djibouti kaabayaasha dhaqaale sidii loo dhisi lahaa sidii looga qayb gali lahaa la dagaalanka saboolnimada Djibouti iyo la shaqo xumida ama la shaqo la'aanta iyo khaasatan waxaan ciyaalka yaryar iskoolka dhiganay malnutrition loo oranayo barnaamij ka soo badan man ka sheekaysanay insha Allah waxyaabaha aan rajeynayno inay ka soo baxaan ziyaaradan waxa weeyaan macaawimaadkii banka adduunka uu Djibouti ugu deeqi jiray inay ugu yaraan 3 goor ama 4 goor ay isla laabto taasna waxay muujinaysaa kalsoonida ay bank mondialka iyo la vice president-ka maanta ziyaara ku jooga iyo intii la shaqeynaysay ay ku yimaadeen ay Djibouti iyo la soo wixii ay u baahan tahay ay u dheeldheen lahayn insha Allah ta'ala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku hadalkaday garoonka diyaaradaha caalamiga ee dalkeena isagoo uu sii kicitamay dalka Urdun si uu ka qayb qaato howlaha shir madaxeedka Carabta kolkii uu ka soo degay garoonkaasi caalamiga waxa si diiran u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed iyo mas'uuliyiin kale intaasi kadib waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ay kulan gaaban ku yeesheen qolka shirarka ee nabadda diyaaradaha waxaana kulankaasi looga hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal intaba waxaana sidoo kale looga hadlay horumarka laga hirgashay dalka Soomaaliya gaar ahaan ammaanka waxaana xusid mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya uu isagu sii kicitimi doono dalkaasi Urdun si uu uga qayb qaato howlaha shir madaxeedka ee ka qabsoomaya Urdun jamhuuriyadda Djibouti ee u fadhiya Muqdisho ee dalka Soomaaliya Dr. Aadan Xasan Aadan ayaa gudoonsiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha mudane Cumar Carte Qaliib gargaar dawo ka timid ummadda reer Djibouti ee loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyay ee walaalaha Soomaaliyeed gargaarkaasi ayaa waxa ay ka koobnaayeen 8 ton oo dawooyin ah oo loogu talagalay in lagu sabooto bixiyo dadka abaaruhu ku dhuftaan basaameeyay gaar ahaan caruurta iyo haweenka uurka leh amba lamaana madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele iyo xukuumaddiisa ayaa heegan ugu jira sidii ummadda reer Djibouti sidii ay uga qayb gali lahaayeen amba ay ugu muujin lahaayeen ummadda Soomaaliyeed gargaar iyo gurmad walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu ku dhuftay munaasabada deeqda gudoonka ayaa waxa uu joogay mas'uuliyiinta kamid ah dawladda Soomaaliya gudoomayno taasoon ahayn daaq bini'aadminimo kaliya
aan dareemayn inay tahay deeq walaalnimo oo runtii madaxweyne aan jecel lahay oo Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacab aan jecelnahay walaalahana reer Jabuuti ah deeq ay soo direen oo sida walaalkana safiirka uu sheegay 38,000 ee tan ee daawada iyo nafaqada isugu jira hordhac ay tahay walaalahana waan isku leenahay waxaana Soomaalidu markay yimaadeen ciidamada Jabuuti waxay u bixiyeen heel walaal waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo وجزاكم الله خير. هذا ما أدري أقدر ما سنتهي لا تجزاء السلام الحينها لما الشعب الجبوتي. أنا أنتي مركي جوريسي ما هسلا وشيء ما شاف نور وشيء ما مركي جوريسي. إلى أي وقت يجي تجعله بيكبر عندنا الصومال استيت في مقصود العرب إلى مانت مروا الضبا واحد شعبي الجبوتي يحكي مدينة wax u taagan sidii ay Soomaaliya u heli lahayd ama dib isugu soo istaagi lahayd xaaladda lugaheeda marka runtii aad baan ka mahadcelinaynaa inaad maanta ma soo gaarsiisay annagana haddii alla idmo waxaan samayn doonaa insha Allah taala inaan sidii la rabay aan u qaybino oo ku gaarsiino dadkii ay tabaalaysnaa maalin laba cisho ka hor baan soo maray runtii dad aad iyo aad u dhibaataysan ayaa meel walbaba saa u jooga oo u baahan in gargaar degdega loo sameeyo gargaarka degdegaana maanta waa aad baan ugu mahadcelinayaa inay soo degdegto oo maanta timid maanta loo baahan isla munaasabadaasi danjiraha safaaradda Jabuuti ee Soomaaliya u fadhiya oo ka hadlay munaasabada deeqda walaaltinimo ee Jamhuuriyadda Jabuuti u fadhisay ummadda walaalaha Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyay ayaa sheegay in shacabka dawladda iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ay mooganeen dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee ku wajahan abaaraha dabiiciga waxaana wili waxa sharaf noo ah inaan maanta guddoonsiino guddiga qaran gurmadka abaaraha Soomaaliya dadaalka ay ugu jiraan gurmadka walaalahooda inaan kala qayb galno kuna wareejino qaybtii u horeysay hadiyada ay soo dhiibeen ama gurmadka ay soo dhiibeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti iyo shacabka Jabuuti oo ka kooban 38 tan oo daawooyin iyo iskugu jirta nafaqo loogu talagalay caruurta iyo hooyada loogu talagalay waxayna hordhac u tahay alaabta ay diyaaraddu siday waxay hordhac u tahay gurmad kale oo soo socda oo raashin ah oo insha Allah markab soo saaran ayay hordhac u tahay waxaan rajaynaynaa in la gaarsiiyo oo loogu gurmado hooyada iyo ilmaha oo ah dadka abaarta ku dhacda kuwa ugu nugul waxaan jeclahay inaan uga faa'iideysto fursadan inaan hambaliyeeyo dawladda Soomaaliyeed iyo guddiga maaragtaan qaran ee gurmadka abaaraha hawsha weyn oo ay ku jiraan ilaahay idinka abaalmariyo isaga ayaa gacantiisa lagu dhargaayay waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu naxariistiisa inoo liso oo roobabka inoo liso oo abaaraha inaga saaro colaadaha inaga saaro oo nabad iyo barwaaqo weyn siiyo aad ayaad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cuki ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka Ruushka oo fadhiya Jabuuti Sergey waxaana kulkaasi looga hadlay xiriirka labageesoodka iyo iskaashiga u dhaxeeya labada dal sidii kor loogu qaadi lahaa waxaana sidoo kale lagu soo qaaday sidii dardargelinta cilaaqaadkaasi gaar ahaan xagga caafimaadka kulankaasi waxaa u joogay kormeeraha guud ee caafimaadka Saalax Boleyta Turaab iyo agaasimaha daraasaadka iyo qorsheynta iskaashiga caalamiga Marwan Nuuriya Cabdi wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cuki ayaa sidoo kale saaka qaabilay danjiraha dalka Turkiga oo fadhiya Jabuuti waxaana ay labada mas'uul ay isla soo qaadeen heshiisyada saaxiibtinimo ee wasiirku qalinka ku dugay kolkii uu tagay dalka Turkiga kulankaasi waxaa u joogay sidoo kale kormeeraha guud ee caafimaadka Saalax Boleyta Turaab iyo iskaashiga caalamiga iyo sidoo kale agaasimaha daraasaadka iyo qorsheynta iskaashiga caalamiga Marwo Nuuriya Cabdi
wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cokiye oo ka hadlay munaasabada la kulanka danjiraha Turkiga ayaa ka xog waramay cilaaqaadka iyo qodobada ay ka wada hadleen waxaana yiri Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waran Muhammad socdaal ayaa ku tagay markii hore wadanka Denmark maantana waxaan tagay wadanka Turkiga oo wadan walaalanahay saaxiibanahay madaxweynihiisa iyo madaxweynaha xiriir wanaagsan oo ka dhaxeeyo aadna noo soo dhaweeyaa walaaltinimo kalgacayl ay ku dheehantahay ayaa noo soo dhaweeyay waxa leeyahay la tiina firkad mis baahina waana laga shaafiyay oo waana loo aqbalay haddaan tafasiilkaas iyo Maxamed waxaan horta la kulmay wasiirka caafimaadka wuxuu ninkaasina na tusay walaaltinimo kalgacayl waliba waxaan inaan isla galno oo isla jaan qaadno oo doonay dib u habaynta caafimaadka ama reform afka qalaad waxa lagu yiraahdo rag khabiirra iyo dhawaan soo diri doona oo noo iman doona oo nala eegi doona halka aan joogno waxaan haysano iyo wixii naga maqan taadabadeed isaga iman doona ministerka dhanka caafimaadka ee Turkiga iman doona on arrimaha dibadda halkani oo wada shaqeyn doona iskuula arki doona taadmara laga tago waxaan la tagay dhakhtarkii ciyalka loo dhisay ee ballanta lagu qaaday ee marwada Dr. Maxamuud Xayde ballan ay ugu qaaday marwada dalka Turkiga tiina wana laga shaafiyo bishan June dhexdeeda yaa wan ku dadaalina inay dhagxii horeeyay la dhago dadaalkii la galo oo dhawaan waxa iman doona rag architect rag loo yaqaano ee dhulka eega dhismaha balkii nashqadii balaangii sidii wax loo dhisay oo dhan wana soo siiyeen qalabkii oo si qurux badan bay taan u dhacday waxa kale oo maxaan ku raahayeen aan ula tagnay dadkani ismiirku wada aragtay Djibouti bahalkan la yiraahdo misa markaad kow sagaal garaacdi bahalkani ambulansada haday noqoto markuu accident dhaco ya haday noqoto xaafadba kuugu imanaya qofku markuu sankaraadka yahay oo ka soo qaaday ama dhakhtar uu keenay oo waxaan yiri goboladana ma siinay Djibouti shan yaa jirta no siyaadiyan yiri 10 ambulans oo qof lagu dhex jeexi karayo ayay halkaasina noo soo bandhigeen siiyeen waxaan yiri war burus ciyalkani ragani wasaaradda caafimaadka shaqeeya ee dhakhaatiirta jarnaalka afka qalad loo yaqaan dhakhaatiirta dadka maxaan ku dhahaa guud ahaaneeda ee takhasuus lahayn takhasuuska wadankiina waa ka soo horumaray takhasuuska la qabta 15 burus oo takhasuus ay siiyeen waxaan markaasi aan ka arkay nasiibkooga afar dhalina oo reer Djibouti oo joogto Turkiga oo halkan ka tagtay halkani dhakhtarnimo ka sameysay oo Turkiga joogto loo diray marka afar boos oo takhasuuska iyo kan halkii ku siiyay si jaamacadaha u galaan 12 boosna imika 12 qof ka diri doona oo tan ku guda jirna waxa kale oo aan ka sheekaysanay an dhakhaatiirta dhakhtarada ka dawliga ka gaarka loo leeyahay si lagu sahli lahaayeen marka waxa ku heshiinay inuu qofku markii aad ama qof si gaar isku diraya ama qof ay maxaan ku raayo oo meel tagaya dhakhtar lacag in ay naga dhaadhiciyaan 40% lacagtaasi ay naga dhaadhiciyaan ay noo sameeyaan qiimo walaaltinimo oo qiimo gaar qofku dhakhtarka ku galay waka noo sameeyaan markaa noo sameeyaan tiina arintaasi waan ka sheekaysanay waan ku guuleysanay oo dhakhtarada ugu weyn qolada ilama ka ton dhakhtar kule dhakani maxaan ku dhahay Turkiga ayaa la soo saxeexnay iyadoo ay la xidhiidho geediga caafimaad ee gobolada dalka gudihiisa ay ku soo martay wasiirka caafimaadka ayaa ka waramay habsamiyo qabsoomadii howlahaasi geediga socodka waxaana hadalkiisa kamid ah geedi balaaran ayaan qaadnay geedi socodkaasi dhakhtar malba dhakhtar maayna waxaan ka haynaa hada jeer ilama 20 dhakhtar hadda u yarta hasabaatee 20 ka haynayno kuwa balaaskooda kuwa kala joogo si fulinay dhakhtarada ma faaruqino matala shan ginekoloog hadaan hayno saddex oo si shaqeynayna labo ayaan maxaan ku dhahay aan geediga ka haynaa markaas inta soconaysa balaaskooda intii kala joogto shaqadii halkan gobolka horta ka sii wadaysa magaalada madaxda ka sii wadaysa ragga geedi socodka aanu ka haynayno waxaan ay tahay waxa weeyaan ballantii u horeysay wasaaradda caafimaadku qaaday ee madaxweynaha uu qaaday madaxweynuhu nagu amray waxay ahayd in caafimaadka loo dhaweeyo shacbiga ayaa marka caafimaadkii hoose waa loo wada dhaweeyo dhakhaatiir maanta gobolka dhakhaatiir baa joogto hasabaatee caafimaadkii takhasuuska ahaa in loo dhaweeyo sida awgeed waxaan ka aragnay
anigoo hada jeer walwalkaygu uu yahay dadka faqiirka ay waxaysan talow ma gaadha caafimaadka takhasuusku anoo ay tahay walwalkaygu waxaan arkay dadii wax dhici kara noo haysan kuwa maya dad halkani badanka ku lahayn faamiyi oo dhow oo dhakhtarkii ka fahaysan maya kuwa markay yimaadiin markaaba toos u helin maxaa raggii takhasuuska ugu khatarsanaa waddanka inay helin yaa dhici karta waxaan dhihi war dadkaas inta imanayaan innikum hawsaashe innikum aad u tagtiin sidaa awgeed waa kaa ogeeda cali sabiix dakhal aan ku bilownay kun iyo jarjar yaan 10 kun iyo jarjar baa samaynay waxaan soo marnay maxaan ku rahaa ubakh waxaan soo marnay tujuro waad arkaysa dhawaan arta imikana noo hadhay artana insha Allah u mari doonaa sanadkana 2 goor inaan arinta baaxad weyn hadday u yar tahay 2 goor inaan saban haddii kala 3 oo ka dhigi karnaa taas waxay noo asmixi doontaa inaan nin kasta meesha uu joogo aan loogu dhaweyn karo dad baan ugu faraxsanahay weliba aniga farxaddu maaha waxa farxadda iyo reereebsiga hambaliyadu ay tahay waa dadkii daalay anigu kormeero u manahay amarkii baan bixinaya ujeedadii aan lahayn iyo amarkii aan bixiyay uu fulay si wanaagsan uu fulay wasiirka caafimaadka Dr. Jaamac Cilmi Cutiyo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in la hirgelinayo ama la abuurayo mashaariic tababar oo loo fidinayo dhalinta iyaga ka howlgala qaybta farmasiga taasina waxay qayb ka tahay buri qorqaadada aqoonta iyo xirfadda shaqaalaha waxaan wasiirka takala dhalinta farmasiyada adii sheegaysid soo sameeyay farmasiga ee Shameerka haddii ka wax ka taabto waxa weeyaan amarna waxa ku qabnaa ayna tahay waqtiga bini'aadamku doonaya in ay dhalintaasi marka ay wax soo barta haday dadkii dawladda ay ka weeday farmasiga ka buuxsanayba ama in ay ku si gaar u shaqeystaan waxa jira anana qaynuuno yaa jira qaynuunada lagu maareeyo farmasiyada ayaa jira qaynuunkaas wuxuu leeyahay nin farmasiya maxabid farmasiyo muu yeelan karaa qaynuunka wadankeena qaynuunka waxa ku sheegi doonaa lambarkiisa dariiqiisa sanadkii la sameeyay qaynuunka 145 ee 1990 la sameeyay wuxuu leeyahay nin farmasiya xabad farmasiyo muu yeelan karaa maanta maxaa dhacay inay farmasiyal nin farmasiya uu 4 furto oo ciyaalkii farmasiga yimiday loo yeero oo la yiraahdo halkan wariyaha kala ka shaqeey magacaaga aan ku qortay halkii farmasiga bishaaradiisu ay inta ahayd in la siiyo laba marka loo kala jeexay qayb intaas raalli ma ka taaleena waxaas wax loo dul qaadanay ma talabaad ninka dhalina ee farmasiya soo qaatay inuu halkan wasaaraddiisa soo sajilo degdeg qaynuunadii iyo xeerarkiina loo buuxiyo waxa la sheekaysanay sanduuqa horumarinta waddanka oo lagu amray in dhalintaasi ama uu fudeydin karo soo degdeg ugu degdeg badan annagu aan tusno qaybihii meelihii laga furi karayay maadaama ka halkan laga furay laba talaabo ku kalena laga furo xeer kuma dhigay qaynuunka kuma qorno inaan annagu markaasi aanu tilmaamno meeshiisi ay baahi jirtay sekretarkii baahi jirtay halkaas ninkaas uu ka furto waxa uu annagu u sahalno oo la qabanno oo la garab galno furistaasi sidoo qof ninkaas u noqon karo qof shaqaysta oo isagu waliba shaqo abuura uu noqon karo xubnaha xisbiga komunisti Shiinaha ayaa wali ku sugan dalka kuwaasi oo kulamo kala gedisan la yeeshay mas'uuliyiinta dalka xubnaha xisbiga komunisti Shiinaha ayaa maanta kulan ku qabtay guriga ummadda kaasi oo looga hadlayay horumarinta hanaanka dhaqaale ee dalka kulankaasi waxa uu joogay mas'uuliyiinta sare xisbiga RPP waxaana xusid mudan in waftigaasi ay maalintii shalay la kulmeen gudoomiye ku-xigeenka RPP ahna ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane Cabdulqaadir Kaamil Maxamed shirka saddexaad ee khabiirada qaabilsan dhabaha xadiidka ayaa saaka ka qabsoomay qolka shirarka ee macadka daraasaadka iyo diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda waxaa shirkaasi gudoominayay dhinaca Jabuuti xoghayaha guud ee wasaaradda qalabaynta iyo gaadiidka mudane Saciid Nuux Xasan dhinaca Ethiopia waxa uu joogay Dadaas Tefera oo ah taliyaha farsamo ee wasiirka gaadiidka Ethiopia ujeedada shirkani ayaa ah in daraasaad lagu sameeyo mashruucyada heshiiska labada dhinac ee ku saabsan qaban qaabada iyo maareynta xarumaha xuduudaha ee labada dal
waxaa kulankaasi ka qayb qaatay wakiilo ka socda labada wasaaradood ee khuseeyo arrimaha gaadiidka ee labada dal, mas-uuliyiinta marsada Jabuuti iyo waxyaha cashuuraadka iyo ayaa sidoo kalena waxaana u joogay mas-uuliyiinta ka howlgala dhinaca socdaalka, beeraha, caafimaadka iyo cadaaladda. kadibna markii si qoto dheer looga wada xaajooday arrimahaasi waxaa labada dhinacay isla garteen in booqdaan xarunta xuduudda Danwale maalinta bari ee Arbaca. wararka kale ee dalka ku saabsan taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida Jenaraal Zakariya Sheekh Ibraahim ayaa maanta booqasho kormeer ah ku gaaray xarumaha ciidamada qalabka sida ee gobolka Dakhil. booqashadaasi ayaa waxa ay ku saabsaneed kormeer soo indhayn ah oo ku soo hubinayo habsami u socodka tababar loo fidinayo ciidamada. taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida ayaa markii uu gaaray gobolkaasi waxaa si diiran halkaasi ugu soo dhaweeyay prefega Dakhil mudane Sheekh iyo gudoomiyaha maamul goboleedka mudane Cabdiraxmaan Yunis Carre iyo dhammaan madaxa ciidamada gobolkaasi. booqashadaasi taliyaha sare waxaa ku weheliya wafdiyo ballaaran oo ka socda taliska sare uu ka mid yahay Jenaraal Daahir Maxamed, Jenaraal Xasan Cali Kaamil iyo la taliyaha sare. taliyaha sare ayaa la kulmay dhammaan ciidamada cusub ee tababarka ku jiray kuwaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 316 askari. madaxa ciidamada Riyadh Lieutenant Colonel Idris Umar Ceeley ayaa taliyaha ka wareystay habkii iyo qaabkii loo tababarayay ciidamadaasi. waxa uu intaasi raaciyay in xaruntaasi ay dhowr jeer martigelisay tababar noocaasi oo kale. waxa uu carabkana ku adkeeyay in ardayda ay ku qaadeen halka tababarkaasi ay muujiyeen helitaanka iyo sidii wanaagsaneed ay uga qaateen tababarkaasi. isla booqashada taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ku gaaray gobolkaasi waxaa halkaasi lagu soo bandhigay majaajilooyin iyo gabayo ka xog u waramaya muujinayana tababarka dhinaca faa'iidada ay ka kasbeen dhalintu. waxaana ka mid ah gabayadii halkaasi ee lagu tiriyay sidata qorshe uu madaxweynuhu dhigay markiina nagu soo qoray ee qalabka minateer iyo qorina noo dhiibay. qorshadeenu wuxuu noqon waa mid aad u qara weyn. waxaan qabani doonana waa dalka qiimihiisa oo dhan waa inaan kor qaadnaa. daada meesha joogtaay anu waxaan daninayaa dayax soo iftiimiyo darbi dhaxanta celiyo dugsi adag inaan noqono. daada meesha joogtaay daadii kaa dambaysee daaqii cagaaraa weli iska dulkuudada daacadda iyo salaadkana daaha weyn ka saaraa gaalada ku daydee surwaalkana dabcinayee dabadaa hoose dhigi jiray ha ku dayan adiguye. adu nin dawladaa tahay dalkaa lagugu aamini dadka adiga kugu seexan. daada meesha joogtaay saddexda ugu dooroon dabuubteenna weeyine abidkiin hadaalina. ta koowaad waxay tahay calankeennan dawgee dugsigiiyo daraha badan dawre laguma soo helin. rag baa loo dilaacsho loo dabxay sidii adhi oo dhiig baa u daatee qaandaasiga ka daayo daafaha ka joogee dalka ilaalinaaye dowdawiya dumeeriyo amba dibad kaleba joogow. dad wixii ku soo mara damba adoonu gelinoon sharcigaba sax ugu dayn haddaad diiriya lacagiyo doolaar uun ka qaado dalka soo xuluushado dabadeedna qaraxiyo qalalaasa weyn rido naarta qiiqa weyniyo qabri ololayaad gali. isla booqashada kormeerka taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida Jenaraal Zakariya Sheekh Ibraahim iyo wafdiga ku wehelinayay booqashadaasi ayaa gaaray gobolka Cali Sabiix. waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida tubiyada ciidamada qalabka sida prefega gobolka Cali Sabiix Maxamed Waabari Casoowi iyo gudoomiyaha maamul goboleedka Umar Ahmed iyo madaxda ciidamada Biyaas Lieutenant Colonel Cabdulwaasic bin Maxamed. taliyaha ayaa booqday xarunta ciidamadaasi ay ku qaateen tababarkaasi oo laga kulmay ciidamada astaajeedka oo muddo bil ah tababar ku qaadanaya gobolkaasi. kaasina waxaa looga micnaysiiyay habsami socodka tababarka loo fidinayay ciidamada. waxaana uu soo indheeyay qolalka xaruntaasi ay ku tababaranayeen ciidamada qalabka sida.
taliyaha ayaa booqashada kormeerka ah uu kusoo marayay xarunta ciidamada cali sabiix islamarkaana kusoo xiday xarunta ciidamada biyaas halkaasi oo lagu soo bandhigay heeso iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka oo ay tumaysay kooxda xarbi.